halkan waa Jabalur Raxma oo ku taal banka Carafo. waa halkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu ka jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay sanadkii Xajjatul Wadaa wax yar ka hor intaanu geeriyoon. waa halkan meeshii Ilaahay adoomadiisa uu ku waajibiyay cumrigooda hal mar inay yimaadaan. waana halka uu xajka ku ansaxayo. waana halkan meesha ay ku soo degatay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaam diina. maanta diintiinii waa la idin dhammaystiray, nimcadeedana waan idin taam yeelay, islaamnimadana diin ahaan baan raali idinkaga noqday. waana halkan meeshii ay ku kulmeen Nabi Aadam iyo ayeeyadeen Xaawa sanado badan oo ay kala maqnaayeen kadib markii laga soo saaray jannada. waana halkan meeshii ay Ilaahay cafiska iyo naxariista ku weydiisteen. sidaa darteed buurtan waxaa loogu magac daray Jabalur Raxma, buurta naxariista, maadaama ay kulmisay Nabi Aadam iyo ayeeyadeen Xaawa. waxayna astaan u tahay midnimada iyo qoysaska bini'aadamka, cafiska iyo naxariista Alle. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam khudbadii uu ka jeediyay Xajjatul Wadaa, xajkiisa gootinta, waxaa ka mid ahaa inuu yiri: wardadow dhageysta warkayga, waxaa laga yaabaa inaan halkan idinkula kulmin mar kale. wardadow, dhiiggiina, maalkiina iyo sharaftiina xaaraan buu idinka yahay ilaa aad kala kulmaysaan rabbigiina. muslimiintu waa walaalo, qofna uma banaana walaalkiisa dhiiggiisa iyo xoolihiisa ilaa wuxuu u ogolaaday mooyee. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu kaloo ka dardaarmay dumarka, wuxuuna yiri: warragow dumarkiina Ilaahay kaga cabsada oo xaq ay idinku leeyihiin. war dumarka khayr u dardaarma oo wanaajiya, waxayna idinku leeyihiin waxay cunaan, waxay cabaan iyo waxay xirtaan. Nabiga sidoo kale wuxuu ka dardaarmay cunsurnimada iyo in dadka la midabta kooro. wuxuuna yiri: dadow Allihiinu waa hal, aabihiinana waa hal, dhammaantiina Aadam ayaa idin dhalay, Aadamna ciid ayaa laga abuuray. inna akramakum cindallahi atqaakum, kiina idinkugu sharaf badan waa kan ka cabsada Ilaahay. qof Carab ah kama fadli badna qof cajami ah ilaa bittaqwa, ilaa cabsada Ilaahay mooyee. waxaana idinkaga tagayaa shay haddaad qabsataan gadaashayda aydan lumaynin, waana kitaabullah wa sunnata rasuulihi, kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka. maxaad dhahaysaan markaan idinka tago? saxaabadii waxay yiraahdeen: Ilaahay rasuulkiisiyo, waadna soo gaarsiisay risaaladii iyo diintii, waajibkaadana waad gudatay, waadna noo nasteexaysay. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam intuu farta kor u taagay buu wuxuu yiri: Allaahumma hal ballaqt, Ilaahayow ma gaarsiiyey, Allaahumma fashhad, Allaahumma fashhad, Ilaahayow marqaati iiga noqo in aan gaarsiiyey wixii aad isoo fartay oo dhan. markaasaa waxaa soo degtay: al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum